السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ومركلة إيا برنامج كيني نحولي كسو دوادا عشر كاني أو عن وقم قعدرني فود إير ذرب ومعنى هذو يهي ومحي فل ومحي فل سيدا دوغا جيدان عشر كان وانا نحوها أفكا سويدشكا أو عن إن شاء الله كشرحي دونه أف صومالي ومحي فل أما verb ayaa lagu dhahaa af Swedish ahaan waxay noqonaysaa macnaha iyada oo kooban verben berättar vad någon gör tusaalooyinka yar ee hoos ku qoranna waad u jeedaan sida går, äter, skriver, talar, läser, springer, lagar, hoppar, kör ereyadaasi oo ah soconaya, cunaya, qoraya, hadlaya, akhrinaya, ordaya, hagaajinaya, boodaya ama kaxaynaya ama wadaya sida gaariga. Marka aan u soo noqono macnaynta kelmadda verb oo af Swedish ah, af Soomaali ahaan iyo luuqadda naxwaha waxaa loo yaqaanaa ama cilmi afeedka kelmaddaasi lagu macneeyaa ama astaan u ah kelmadda af Soomaaliga u dhiganta ereyga fal. Fal haddaba maahan falkii wax la falayay sida hebel waa la falay maaha. Waa la sixray oo kale maahan ama beertii la falayay maaha oo beer baan falanayaa falkaasi maahan orod bax oo beerta soo fal ama hebel waa la falay oo waa la sixray maaha. Waxa laga hadlayo waa fal naxweed. Waa astaan magac ahaan loo isticmaalayo kelmadda verb iyo wax walba oo la samaynayo hadday tahay falidii wax la falayay iyo hadday tahay beer la falayo iyo hadday tahay orod hawsha soo fal wixii laguu diray ee fal lagu yiri orod fal oo samey. kelmadda marka waa maxay fal naxwo ahaan waxaa lagu macneeyaa ama ay naxwoyahanadu ku macneeyaan falku waa erey naxwe ahaan tilmaamaya waxa dhacaya ama uu qof samaynayo yacni waxa jumladda dhexdeeda dhacaya ee uu qofka jumladda ama hawsha jumladda dhexdeeda ka socota dhacdadaasi dhacaysa ayaa ah fal oo fal ama verb af Swedish waa mid ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha oo tilmaan gaar ah ka bixinaya war ku saabsan yeelaha ama waxa uu falayo. Marka Swedish ahaanna waxay noqonaysaa verb är ord som talar vad någon gör eller vad som händer. Till exempel läser akhrinaya. Akhrintii waa wax dhacaya oo markaas cali wax buu akhrinayaa, cali wax buu falayaa, wax buu samaynayaa. Muxuu samaynayaa uu falayaa cali wax buu akhrinayaa. kelmaddaasi akhrinaya ayaa ah fal ama verb läser. Waxaa muhiim ah in lagu baraarugsanaado mar walbana uu qofka baranaya afka ee jooga xilliga aasaaska ah ee heerka koowaad ee barashada luuqadda in uu qofku fahamsanaado jumladda ama weedha ma ahaan karto fal la'aan si ay u samayso macno mufiid ah macno yacni jumladdu ay macno buuxa u samayso waa in uu ku jiraa jumladdaasi fal. Alla meningar måste ha minst ett verb. Ugu yaraan si loo sameeyo jumlad ama weer macno leh waa in uu ugu yaraan ku jiraa hal falah jumladda. Horeyaan uga soconaynaa tusaalooyin ayaan halkaani ku soo qaaday si aan u fahamno waa maxay fal. Af Swedishka jumlada aad u gaagaaban oo aan ugu talagalay qofka luuqadda xilliga aasaaska jooga ee bilowga jooga inuu fahmo ee xiisaynaya inuu fahmo naxwaha afka Swedishka aan ugu talagalay jumladahani aadka u sahlan. Tusaalaha koowaad waa han går till skolan. Marka kelmadaha aan qalinka gaduudan mariyey ayaa ah fal ama verb.
wuxuu u socdaa ama wuxuu tegayaa iskoolka. waa wax markaa hadda dhacaya uu qofkaasi u socdo. wuxuu qofkaasi samaynayaa, waxa uu qofkaasi hadda falaya maxay tahay? wuxuu falayaa ama uu samaynayaa, uu ku howlan yahay inuu iskuulka tago. marka wuxuu tegayaa iskuulka, wuxuu u socdaa iskuulka. Han gick till skolan, wuxuu tegey, ama ha ahaado fal tagta ah ama ha ahaado fal joogta ah. yani labadiiba waa qalin gaduudan ayaan mariyey. weli waa wax dhacay ama wax dhacaya, marka weli waa hawl la falay ama hawl markaa la falayo lagu howlan yahay. Du lyssnade på radio, waxaad adigu dhegaysatay, raadiyahaad dhegaysatay. raadiyaad dhegaysanaysaa, raalli ahaada. Du lyssnar på radio, raadiya ayaad dhegaysanaysaa. kelmadda dhegaysanaysaa oo markaasi aad ku howlan tahay, waad samaynaysaa, waa joogto, waa fal, waa verbe. Du lyssnade på radio, waad dhegaysatay, waa isla fal oo laakiin tagta ah, wax dhacay waaye. wixii dhacaya iyo waxa dhici doona iyo wixii dhacayba, waxa dhacaya iyo waxa dhici doona iyo wixii dhacayba dhammaantood waa fal. Jag äter somalisk samosa, waxaan cunayaa, haddaan samaynayaa, waa fal. qofka muxuu ku howlan yahay? qofka falna cidna ma falayo, beerna ma falaye, wuxuu falayaa cunis. muxuu cunayaa? sambus. hawsha uu ku howlan yahay waa sambus cunis. marka jag äter somalisk samosa, waxaan cunayaa sambus Soomaali. dabcan wadamo badan ayaa sameeya noocyo kala duwan oo sambuska ka mid ah. Jag åt, waan cunay weeye taasna. marka tusaalayaashani waan u soo noqon doonaa oo si qoto dheer ayaan u istaagi doonaa kooxaha ama qaybaha falka uu kala qaybsamo, rogrogmadka falka siduu isu bedbedelo, waxyaalaha saameeya. laakiin hadda horta waa inaan fahamnaa horta waa maxay fal iyo erayada aan u baahannahay si aan casharada dambe u fahamno ee af Swedish ahaan iyo af Soomaali ahaanba, in aan marka ugu horeeya aan barano. erayadaasi ayaan xooga saaraynaa hadda qaybtan. tusaale aan ka soo qaaday buugga Formi Focus, arday badan way taqaanaa, qaarka aan horay u aqooninna way arki doonaan. waa buug naxwaha lagu barto af Swedishka. wuxuu leeyahay nu, waa wax hadda joogta ah. falka marka qaybihiisa aadka muhiimka u ah aasaaska in la fahmo, sida kuwa dambe loo fahmo, waa labadani ama 3 qaybood baa inta badan marka ugu horeysa la bartaa, oo ah qaybta asalka falka, aasaaska falka, iyo joogtada iyo tagtada. 3daas haddaan fahmno, iyo amarkaba, ficil amarka. ficilka asalka ah waa marka ereyga laga baaraya qaamuuska oo ruutka ama asalka, aasaaska ereyga, amarka iyo joogtada iyo tagtada. 4taas haddaan fahmno, inta kalena insha allahu tacaala biidni illaahi kariim waan wada fahmi doonaa. marka nu waa wax hadda dhacaya ama wax dhaca oo joogto ah. joogtada waxaa ka mid ah marka xaggan, haddaad aqrisid dee tista, hadda waa talaado maanta, waa maanta laga hadlaya, waqti buu sheegayaa. klockan är 11, saacadda waa 11:00. Eva tvättar. Eva waxbay falaysaa, ay samaynaysaa. maxay samaynaysaa? tvättar, dharbay dhaqaysaa. dhaqidaasi hadday ku howlan tahay, way dhaqaysaa, waa fal. Per stryker, per baa ka garab shaqaynayo, isagana dharka ayuu feeraynayaa ama kaawiyadaynayaa. marka labadaaba dharka ayuu per feeraynayaa, labadaba waa ficil joogto ah oo dhacaya, waana fal. tvättat waan usoo noqonaynaa. har tvättat waa qayb ka mid ah ficilka, waa kan shanaad aan u tegi doona hadduu ilaahay idmo. laakiin hadda waxaan keliya muhiima inaan fahmno ficilka horta waa maxay, verbe. marka ninka uu la yiraahdo sorterar, isagana tvätt, dharkii buu kala saarsaarayaa. sortera tvätt waa dharka markaad kala soocaysid, u kala soocaysid midabada. sortera tvätt aad kala soocaysid nambarka qasaalada lagu dhaqaayo. gaduud baa lala dhaqayaa, cadaan baa lala dhaqayaa, jiinisyada dharka adag waa laysla dhaqayaa, madow baa lala dhaqayaa. marka sorterar ma boqolkiiba inta digrii lagu dhaqaayo, waxaasoo dhan. marka sortera tvätt dharkii ayuu kala saarsaarayaa. haniska tvätta, tanna waa iyadana waa u imaan doonaa, waa wax markaasi aan weli dhicin oo mustaqbal ah, marka uu dhaqi doonaa.
tusaale kale oo iyadana ah duutiid oo ficil tagta ah weli waxaan ku dhex jirnaa si aan u fahmno waa maxay verb, waa maxay fal. tusaalahan kale isla buuggan ka soo qaaday devo mondag, isniin bay ahayd iguur shalay. marka waan u iman doonaa falka rogrogmadkiisa wuxuu sheegayaa xilli, goor buu sheegayaa. goortan marka maxaa lagu ogaanayaa? hantfetade, waxbuu dhaqay, marka wakti buu sheegayaa. goormuu dhaqay? shalay, saakay, isbuuc ka hor, wakti hore lasoo tagta waaye tan. marka hadda marka aan ka qaadan oo keliya inaan fahmno waa maxay fal oo ahayd tfetade, wuu dhaqay, weli falkii baan ku jirnaa, waa wax la qabanayay oo laga soo tegay. anna strök, anna way feeraysay. hun hadde tfetad, iyaduna waa qayb kale oo falka ka mid ah oo lixaad markaan usii gudubno insha allahu tacaala. hor tfetad bay ahayd, hadda tfetad baan hadda maraynaa. iyadana insha allah gaar baan uga hadli doonaa. fabian soterade tfet wuu kala saarsaaray, iyaduna waa duutiid, waa tagto. marka iyo iskulle tfeta waa uu dhaqan lahaa dharka, iyaduna waa qayb kale. marka waa maxay fal? haddaan usoo noqono, falka waa ahmiyadda ugu weyn. falku waa in aan fahamnaa, wuxuu ka hadlayaa, wuu qeexayaa wax dhacaya markaasi, ama dhacay ama dhici doona oo ku jirta jumladda. wixii la qabanayay macno ahaan ayuu samaynaya. swedishka buugani waxaan kasoo qaaday grammatik from Grunden, waxaa la yiraahdaa, wuxuu saan u qeexayaa verbe är ord som talar om vad någon gör. wuxuu sheegayaa waa eray ama kelmad wuxuu qofku samaynaya noo sheegaya ayaa ah, ereygaasi ayaa ah verbe naxwo ahaan marka laga hadlayo, ona ka mid ah qaybaha hadalka ee ay luuqadi leedahay. eller vad som händer, ama waxa dhacaya. sida tusaale ahaan arbeter, qofkani wuu shaqaynayaa. eter wuu cunayaa, waa waxuu qof samaynayo. dricker waa uu cabayaa. marka u fiirsada waxyaalaha dhacaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan the bluser, kelmadda bluser dabayl baa dhacaysa, ama the regner roob baa da'aya. regner waa verb, waa ficil. falkaasi wuxuu sheegayaa wax markaasi dhacaya, roob baa da'aya, dabayl baa dhacaysa. marka waxbaa uraya the lukter. lukter waa iyadu laftirkeed verb. marka mayelpa of verben, annagoo marka adeegsanayno kaashanayno verb, falka wuxuu qofku kusoo gudbin karaa yani wixii uu samaynayey. wuxuu kaloo verb ficilka rogrogmadkiisa lagu ogaan karaa waktiga ay wixii dhaceen, iyo ama waktiga ay dhici doonaan, ama waktiga ay markaa dhacayaan. tusaale, arbeta, shaqaynaya, oo ah asaaskii infinitive ama asalkii verb falka. arbetade, wuu shaqeeyey, waa goo tagto, ama arbeter, hadduu shaqaynayaa. wakti buu marka sheegaya haddaad u fiirsataan. marka sidaasi lamida wuxuu leeyahay buuggan, sidan alla meningar måste ha minst ett verb. jumlad weliba waa inay ugu yaraan yeelataa hal ficil. waxaan u soo noqonaynaa qaybihii aan kasoo gudubnay. waxaan hadda ku bilaabaynaa 4 qaybood oo qaybo ka mid ah yani sida uu falku u rogmado ama uu isu bedbedelo. infinitive oo asalka falka ah, iyo waxay noqonaysaa yoba. yoba waana infinitivekuna waa nooca falka ee ereyga kelmadda qaamuuska markaad ka doonaysid, waa in qaybtan koowaad ee kulamka koowaad ee halkaas aad u jeedaan infinitiveka ayaad ku raadinaysaa. qaamuusyada ereyga marka laga doonayo sidaasay u qoran yihiin: yoba, ringa, lesa, tro, skriva, dricka, eta. saasaa lagu baarayaa. marka waana aasaaska falka ama jiridda falka sida qaamuuska looga doonto marka aad ka baaranaysid. cunaya, cabaya, akrinaya, marka waa sidaasi. marka imperativku waa amar, ficil amar wixii la dhihi jiray: shaqee, cun, cab, samee, orod, fariiso, kac. marka waadna arkaysaan qaybtaas waxaa saaran calaamatu cajabaa saaran. marka
utropistekana saaran waxay tusinaysaa inuu ficilkaasi amar yahay oo ah fal amar ah oo markaasi wax markaa la samaynaya. Presence waa joogtada markaasi hadda yobar wuu shaqaynayaa, wuu wacayaa, wuu akhrinayaa, wuu aaminsan yahay ama wuu aaminayaa, wuu qorayaa, wuu cabayaa, wuu ordayaa. waa wax markaa dhacaya presencega. yobar, springer, skriver, leser, dricker iyo wixii lamid ah. preteritum waa tagto, waa duutiid waxaan ka hadlaynay, wax tagta ah. yobade wuu shaqeeyey, ringde wuu wacay, leste wuu aqriyey, wuu aaminsanaa, trude skreef wuu qoray, daraag wuu cabay, wax tagta ah. marka ficilka sidaad arkaysaan waa maxay? ficil fal sidaan horeyba u sheegnay, waxa uu falku sheegayaa wixii la falayay oo la samaynayay oo dhacayay iyo waktigii ay dhacayeen ayuu qeexayaa, iyo hadday tahay tagto weli sii socotay, hadday tahay wax markaa la yeeli rabay ee aan weli la samaynin, iyo hadday tahay wax la samayn doono mustaqbal ah. marka waktina waa uu sheegayaa sida aan ka fahmayna meesha. qaybtii ugu dambeysay ee gabagabadii gunaanadka barnaamijkan soo gaarnay, waxaa aad iyo aad muhiim u ah in aad erayadan soo xifdisaan sida ay u qoran yihiin oo la fahmo. aad bay muhiim u yihiin si aan u fahmno insha allahu tacaala casharada kale ee aan ku qeexi doonno naxwaha guud ahaan iyo marka aan dhex jibaaxi doonnaba falka. fal waa verbi grupper waa kooxa fal ama qaybo falka ka mid ah, sida marka falka la qaybinayo oo la kala kooxaynayo, koox loo kala qaadayo, waa verbi grupper. svoga verbe falal sahlan oo fudud ama jilicsan marka la badbedelayo, la rogrogayo, waa kuwa jilicsan. iyo falal adag ayaa jira oo falka adag starka verbe ayaa jira, marka iyaguna starka verbe falal adag. tempus waa waktiga falka uu isbedbedelayo iyo goorta marka laga fiirinayo. böйning oo rogrogista falka ah, isbedbedelka falka ku imaanayo. eta, eter saas oo kale, iyo ut iyo hor etid marka uu isbedbedelayaa falkii. imperative iiga qorbatay meeshaasi waa khalad, efta kuma jirta, waa imperative. waa ficil amar, fal tilmaamaya amar in wax markaa la sameeyo ah. kac, soco, cun, cab, fariiso, jiifo, orod, aamus, hadal, akhri, waxaasoo dhan waa fal amar ah ama ficil amar, sida dadka af carabiga wax ku barta ay yiraahdaan ficil amar. marka waa imperative. markii uu qoran yahayna waxaa raaca mar walba calaamatu cajab oo ah utropistekan. markii hadal ahaanna waxaa lagu muujiyaa dhawaaqa oo ah kac, cun, cab. dhawaaq ayaad ku muujinaysaa inuu ficilkaasi amar yahay. infinitive kelmadaasi waa asal ama aasaaska falka, sida ay naxwolayaasha qaar isticmaalaan. root ama jiridda, ani kelmadaasaan ka jeclahay jiridda, laakiin linguistically macno kasii baaxad weyn ayuu leeyahay kelmadda root. marka jiridda falka ama asalka falka infinitive. waxaa kaloo jira presence, waa newtidka, waa joogto, waa fal joogto ah. newtid fal joogto ah. preteritum waa duutid, waa fal tagta ah. preteritumkana waa duutid, waa fal tagta ah. marka ereyadaasna waa inaad soo xifdisaan ilaa intaan casharada dambe isaga imaanayno. ugu horeyn waxaan qeexaynaa qaybaha hadalka ut classerkan mid walba. sidaasaan horta waa maxay inaan mid haddana u fahamno. waxaan kasoo gudubna casharkii ahaa waa maxay qaybaha hadalka, waa maxay naxwi. hadda waxaan dhex gelaynaa mid. waa maxay fal baan dhamaynay, waa maxay magac ama substantive baan u gudbaynaa, waa maxay falkaab adverbe. sidaasaan ku wadi doonaa hadduu ilaahay idmo. kabacdi ayaan haddana mid u dul istaagi doonaa. waxaan rajaynayaa in duubistaani ay noqon doonto aasaas wanaagsan oo dad badanna ay ka faa'iidi doonaan, in horeyna loo sii hormariyo ku barashada naxwaha afafka kale in af soomaali lagu barto.
ugu dambeyntii waxaan kusoo gunanudayaa waa maxay fal ama waa maxay verb inaan fahmno. Verben bereter vad någon gör i en mening. marka waa barnaamijkii naxwoole iyo anigoo ah cabdifataax bana caymuun oo idinkaga sii tegayo bejkani ugu dambeeya aan soo celine bejkan ugu dambeeya oo ah falku verb waa erey naxwo ahaan tilmaamaya waxa dhacaya ama uu qof samaynaya jumladda dhexdeeda. fal waa verbien, waa mid ka mid ah qaybaha hadalka oo tilmaan gaar ah ka bixinaya war ku saabsan yeelaha iyo waxa uu falayo. marka si loo sameeyo weer macno buuxa samaynaysa ama jumlad mufiid ah waa in uu fal ama verbi ku jiraa, ugu yaraan hal fal waa inuu ku jiraa jumladda. waa anigoo idinkaga sii tegaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.